maanta runtii maalin weyn ayay u tahay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Galmudug ayadoo kooxihii dhagarqabadayaasha argagixisada ah xalay isku dayeen inay qalqal galiyaan amniga iyo xasiloonida dadka ku dhaqan caasimadda Galmudug sidoo kale inay ku carqaladeeyaan oo news ku abuuraan iyo war ku abuuraan maadaama shir uu ku socdo magaalada caasimadda ee Dhuusamareeb shir uga socdo madaxda qaranka iyo madaxda dawlad goboleedyada looga arinsanayo masiirka ummadda Soomaaliyeed runtii waxa sharaf weyn ah in ciidamada geesiyada ay gorgor xalay ka hortageen weerarkii iyo dhagartii ay rabeen inay u maleegaan ummadda dhagartiina ayaga ay la godoontay maantana aad arkaysiin in hubkii iyo qorigii weynaa oo meelo badan oo Galmudug ay ummadda ku dhibaateyn jireen in lagu qabtay gaarigii ay ku wadeen ciidankii saarnaa qaarna la dilay qaarna dhaawac yihiin qaarna firxadkoodii lagu sii daba jiro runtii sharaf weyn bay tahay waxaan u hambaleynayaa ciidamadii iyo saraakiishii ciidankaas hogaaminaysay ku guuleysatay howlgalkan sharafta leh waxaan leenahay runtii kooxaha waxay u tahay fariin adag kooxaha oo loo dirayo kooxaha argagixisada ay u dirayaan ciidanka qaranku oo ay leeyihiin meeshani ma ahan meel lagu soo degdego meeshani ma ahan meel dadkeeda aad argagax gelin kartaan meeshani ma ahan meel madaxda joogta ee masiirka ummadda Soomaaliyeed ka tashanaysa meel lagu carqaladeyn karo runtii darsi fiican bay u tahay waxaan leenahay sidii gudoomiyuhu sheegay ay soo dhiibaan kooxaha argagixisadu wax nafa u hartay male markii hadda la wareystay nimankan dhaawaca halkan jooga waxa weeye tabartooda aad bay u daran tahay mana u babac dhigi karaan ciidamadan aadka u qalabaysan ee hubaysan ee niyadda birta wata uma adkaysan karaan weeraradooda marka waxaan ugu yeeraynaa inay soo dhiibaan dadkan waa dadkoodii ninkan la qabtay oo dhaawacay waa nin reer Galmudug wuxuuna dhibaateynayay dadka Galmudug waxaan leenahay dadka u dhashay ee kooxaha argagixisada ku jira kuwa hogaaminayay waxaan loo sheegay inuu yahay labaduba inay yihiin aagan dad reer Galmudug waxaan ugu yeeraynaa waxay idin tarayso ma jirto inaad dadkiina carqaladeysaan dhibaateysaan dishaan idinkuna duurka ku jirtaan oo ku gaajootaan isi soo dhiiba ciidamada isku soo dhiiba waa la idin ammaan gelinayaa waa ujeedaa ninkii dhaawac ahaa oo ninkii qaraxyada dhan abaabuli jiray macallinkii nii weyna sida biyaha iyo cuntada iyo hadda loo siinayo waad ujeedin marka waxaan idinku yeeraynaa meeshaan cadow ma joogo gaala ma joogto murtadiin ma joogaan dad muslim oo Soomaaliya walaalihiina jooga oo u dadaalaya dadkan dawladnimadiisa iyo nidaamkiisu inuu soo noqdo idinkuna waxaad ku jirtaan dhibaato adduun iyo mid aakhira labadaba waa ku jirtaan diinna idinka raaci mayso janna idinka raaci mayso Dhuusamareeb iyo ereyadeeda iyo Galmudug Soomaaliya idinka raaci mayso halkan janna ma taalo waxaa yaala meydkiina oo la daadinaya yaala marka waxaan leenahay soo dhiiba iskuna soo dhiiba ciidanka qaranka iyo ciidamada Galmudug intaba aagaga kala duwan waa idin furan tahay waqti kastoo ay soo dhiibtiina waa la soo dhaweynayaa marka waan ognahay fariimaha ka soo baxaya gudihiina in dad badan ay rabaan inay ka soo firxadaan meeshaas aad iyo aad mar kale ugu mahad celinaya taliyaha iyo ciidamada gorgor runtii waxay ku soo kordhiyeen muddadii ay joogeen Galmudug shaqo fiican oo wanaagsan waanan aragnaa hadda inay shaqadii ugu muhiimsanayd ee argagixisada dirirka loo soo tababaray inay ku hawlan yihiin kuna jiraan waan u mahad celinaynaa aaga kala duwan ee ciidamada ku jira ilaa iyo Bacadweyn iyo meelihii mudugtaas ciidamada ku jira galgaduudan ciidanka ilaa Gurceel iyo ilaa dhulkaan baxdiya ku jooga dhammaan waxaan leenahay cadawgi saasuu u fudud yahay u tabar daran yahay waxa weeye ha loo diyaar garoobo iska celinta cadawga iyo naafayntiisa